waxaan arkay wixii ugu yaabka badnaa maalinba wax yaab labaad arkaysaa nin baa gabadhu qabay baa waxay 8 ilmaa markay u dhashay ayay xanuunsatay oo way xanuunsatay markaa xanuun maskaxda oo waale ah markaa wuxuu sameeyay geed buu ku xiray geedka markuu ku xiray uu galmoon jiray habeen kasta 3 habeen bay ku dhashay ayadoo 3 ilmood bay ku dhashay ayadoo geed ku xiran geedku ku kufsadaa ayadoo xiran buu kufsadaa way ku ureysataa 9 bilood bay ku xiran tahay ayadoo xiranna way dhashaa xagaasayna umasha uga baxdaa 3 sano ka bacdi baa meediyaha loo soo bandhigayaa ayadoo lugaheeda xitee kaadidii iyo wixii ka yimid aynan ka dhaqin oo wasaqaysan oo geedka ku xiran oo laakiin magaceeda taqaana oo halka ku kufsanayay ayaa la soo bandhigay alla maxay dumarka duleysteen war dadkan hadday reebaadiinimo iyo doqonnimo naxariis darrada u geynayso dee reemiyiga inta loo tago ma la wacyigeliyo alla nimanku naxariis darana ninka noocaas ee xaaskiisa xanuunsan kufsanayay oo 3 ilmood ka dhalay waxaasoo kale meediya intay kuu soo galaan bay waxay ku leeyihiin markaad hal erey ka hadashid oo diinta miyaad haysataa diinta ma haysataa adigu diinta ma haysataa alla doqomo ilaahay bartay fara badana waxaa lii doqon ilaahay bartay lagama gar helo doqon ilaahay taqaana miyaheed doqon ilaahay yaqaana lagama gar helo dad doqoma ah oo doqonnimadooda cibaado u haysta dad doqoma ah oo doqonnimada iyo dilka iyo bahdilkay soo geysanayaan oo haysta inay cibaado tahay oo haddaad dhahdid warheedha waxaan aad samaynaysa waa foolxumo adiga ku dhahay gaal baa tahay adigu gaal baa fadxiya cabsi hadda waxaa lagu haystaa warheedhe xagee bay dumarku konton see u noqon karaan ragguna 100 ilaahay meel ku sheega ma lahan xagee buu ka yimid markaas waxaan arkayay aayadii ka hadlaysay maxaa la dhahaa deyn marka la kala qaato waa laba arrin oo shaqo isku lahayn baa qortus xitaa waxa la weydiiyay dadkan kama jawaab yaqaanaan waxa la weydiiyay waxaas ma cilmi baa si qofku ku jawaab aqoon uu aamusaay afkooda xitaa ma haysan karaan gabadhi baa saa loogu dhadhagan yahay bilaayo ku dhacad waxa xaasaskooda kufsanaya way waxa ku dhagan wax kala ma aha 2018 miyay ahayd hadaan qaldanay 17 xilli dheer bay ahayd baa ka soo wareegtay baan meediya waxaan iri niman badan oo lacag aruurin jiray baa jiray sheekadan ku soo darayaa rag badan oo waxa jiray lacagta dumarka ka aruuriyo masaajid dhisi jiray markaas waxaan iri wareede sadaqadan ka daaya sidaan oo dumarka aad ku qasbaysan haweenka waa sheeko dheer waa lagu qasbi jiray si qasab ah oo masaajid dhis ilmaha ayaa laga qaada wax noocaas niman tuugsanayo baas baa aad ugu soo batay gobolkan deganeen iyo Norway oo dhanba Europe oo dhanba lacag fara badan ka qaadi jiray dumarka ku yiri masaajidkan dumarka ku dawaqiseen oo lacagtaada ugu aruurinaysaan ka qaad ka daaya meel cibaado haddaad dhisaysid wadankan dowladda ku caawinaysa bangiga deyn ka qaadanaysa deyntaas aan la bixinayaa dadka aad heshid oo meeshaas mawlacaas masaajidkaas ka ana mallamka ama memberka ka ah oo ku tixana dowladdu dhaqaale ku siisaa meelaha cibaadada lagu cibaadeysto waxay dumarka uga lacagta uga qaadanayeen maba aqaanba sheekada waxaan uga dan leeyahay oo idinku dheereeyay arrintii markaan ka hadlay aan ku yiri waraad ilaahay ka baqa walaalayaal inaga daaya lacag fara badan ma hayneen sitimaankii gudihiisa 7 gudihiisa baa isla masaajidkii anigu aan mallamka ka ahaa oo aan ka mid ahaa oo caruurtaydu quraanka ay ka dhiganayeen oo anigu aan kuraastiisa wax ka gaday oo nadaafadiisa aan ka shaqaynayay oo aan dadka ka mid ahaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi baa laga gaalaysiiyay wadaadkii baa gaalaysiiyay naag waxaa soo baxday ayaan xirsi ku xiran iska ilaaliya markii la isgaalasiinay magacaaga lama sheego moogtahay oo wadaadadii dhahaysa lacag yeena aruurin sheekadina anigu ahay dadkan waxay ku garteen ana war lacagta ka daaya gabdhaha diinti oo dhan waxaa la iga saaray hadda diinta oo dhan waxaa la iga saaray waxay ahayd warheedha noo naxariisto walaalayaal lacagtaan ma hayna inaga daayo nin raba inuu lacag qaataa diinta iga saaray
dadkii qaybna way naxday qaybna soo lama rabin in laga hadlo la dhaw wareer gabadha gaalaysiin dee waxay ka hadasho waarun dadka Soomaaliya saas ma dhihi karaan waa lagu gaalaysiinayaa waa lagu caayayaa waxa la rabaa lagu sameeynayaa inna ka hadlamayso shiiqo ugu weyn hadduu rabo inuu ku dulmiyo ku dulmin wax ka hadlaya male aniga intaan naxayno naxsan baa masaajid ka soo baxay taqaana qof dhalinyaro ah dee goormo way 2017 ka hor oo wax isgaalaysiin ma arki jirin ma ogeyn baan waxa oo ilma yar meesha geysato xilligaasna markaan ka soo baxo shaqada ilaahay baa igu ogaa ciyaalkii quraanka inay dhigtaan baa meesha u keenay jiraan oo daalan baan jimcaha soo carari jiray bal inay dhaqanka waxa bartaan meesha laga gaalaysiinayo meesha laga gaalaysiinayo oo laga xamnayo oo masaajidka dadkii aasay baan wax ka mid ah wax ka dhisa ka aasay aniga madlamka oo lacagtayday dawladdu ay lacagta aniga laga bixinayo qof kasta lacag baa laga baxshaay baan ka mid ah meesha dhaqaalaha galaya aniga caruurtaydaba anoo wadni dhacsan yahay oo naxsan baan soo baxay xanaaqsan oo jimcadan qof lagu soo qaatay miskiinada waxa la igu soo qaadanayo rag iyo waxa kama hadlo xilliga waa war lacagtaad aruurinaysaan iska daaya oo shaatigan diimo intaad u soo gashataan dumarka lacagta ku bajinaysaan walaalayaal ka daaya lacag ma hayn intaas ay ahayd hadda fadhiyo waxa lagu gaalaysiinayo lagu ceersanayaa war dumarku seekonton u noqdeen maalinba gabar baa dhays waxa maxaysaa u yihiin waxay noqotay diintii mid u xiran qofka tuuga oo burcadbadeedka ah oo qaa'inka ah oo kufsadaha ah oo dilaaga ah ma aragtay din dilaa oo la gaalaysiinayo war hadal waxa maxaysaa u noqdeen baa diinta dhan lagaaga saareen kaas intaan naxdid oo niyadu ku jabto oo wadnuhu ku boodo oo aqaracantid baa adiga dhan bas fiirinayso too diinta ma ku jirtaa ma ka baxday qof nuweyn ku dhaw gaal baa tahay adiga dhan baa hadal badan oo isku difaacdi ma garanaysid waxa kugu dhacay oo dadka dhintay ka shakiya dee wadaadkii baa ku sheegay wadaadku inuu wada wasaad moodaa waa nacalad dhashay way dadkan dad baas bay gun u yihiin kuma ayaguna gardarra maxaa maqli jira saddex lagama kaco gaajo guri og iyo gardarra garba og iyo geeri maxay iyo gabow geero og saddexdaba lagama kaco markii lagu gardaraysto dadka inay lahayn war qofka maxaa loo gardaraysanaya wuxuu ka hadla waa run uu dhibkana wada haysto ma ogtahay waad xanuunsanaysaa markaa soo ma aragtid maryanta ina xasana aniga markii waxa igu dhaceen waxyaabo badan baa ka bacdi intaan cariiqsadaan cariiqsi iyo ciil aan u sameeyay ma garanaysaa maryantaas waxay ka mid ahayd hadda dhow mar dhexdaas nimankii dadka gaalaysiinayay bay la socotay aniga macaawi waxaad gudubtay maanta Soomaaliya ayada hadda xitaa kuwa dadka gaalaysiiya haddaa saaxiib leeyahay saaxiibnimadooda mid socota ma aha beritoona haddaa dhada war waxaa maxay isaa u yihiin adna waa lagu gaalaysiinaya had Soomaaliya waxaa lagu gaalaysiinayaa aniga iiba nacamlaysid inaynu u nacamlayn bay gaalo ku noqotay gabadha wax kale kuma aha wax kale uma nacamlayso kuwa gaalaysiin jiray kuwa dadka gaalaysiyo dadka xaganaya haddaad u nacamnay maca gaal baata haddaad ka aamusid gaal baata haddaa wax isweydiisa gaal baata gaalnimadu waxa way noqdeen kaar ay qaybiyaan ayaga kaliya muslimadu waxay noqotay meel ayaga u xiran seero lama galaan ah oo ayaga u xiran seeraha waa seero xiran waa seero u xiran niman tuuga oo isku yaqaan inay muslimiin yihiin oo goortii muslimiin aan garanayn iyo meeshii ka yimaadeen iyo xitaa inay Soomaaliyiin garan mayno hadda markaa sheekada waa ninkaas oo kala waa ninka inta xaaskiisa ku xirtay meesha dhahaya rujaal baana oo gabadhiisa kufsanayay 3 sano kufsanayay geedka ugu xirneed ee noo soo sawiraya asoo kaayada xitaa ka dhaqin balaayo guskii xiniyaha ku kugu dhaco